السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada aqoon doon channel waa muuqaalkeenii toddobaad ee HTML5. muuqaalkan waxaynu uga hadli doonaa angle tag ama links in HTML5. taggan ayaa loogu talagalay in lagu qeexo hyperlink waxaana loo isticmaalaa marka lagu xirayo page kale. attribute-ka uu leeyahayna waxaa loo yaqaanaa href attribute kaasoo cadeynaya ama loogu talagalay inuu qeexo halka linkigu uu ku dhamaado. default ahaan markii loo fiiriyo linkiyada waxa ay ugu soo muuqdaan browserada wajiyo kala duwan. wajiyada waxaa ka mid ah target attribute iyo blank attribute. target attribute waxa uu leeyahay default attribute ah self kaasoo loogu talagalay in la isticmaalo marka page-kaada gudihiisa aad ku isticmaalayso linkiga oo aadan u gudbeynin page kale. halka blank attribute uu yahay in loo isticmaalo marka page-ka xiga la furayo qaab new tab ah. aynu u gudubno qaybteeni practicalka. ugu hore waxaan soo kicinaynaa text editor-ka kadib waxaad imaanaysaa qaybta badiga. waxaan sameynaynaa link iska default ah. waxaad taabataa ama anchor kadib waxaad leedahay enter. waxaan isaga qoraynaa qoraalkan rabno. tusaale kale waxaan ku qoraynaa www.aqoondon.com kadib waxaad ku qortaa our page oo kale. halka qoraalka aan ku qorayno waa qaybta inoo soo muuqan doonta. ma inoo soo muuqan doonta aqoondon.com balse waxa inooga soo muuqan doona browserka our page. aan save gareyno bal aan tijaabino. waxaad imaataa qaybta aad page-kaada ku save gareysatay kadib soo kici. saarkeysaan halka waxa inoo sameysan our page. haddana waxaan sameynaynaa linki ayaan u sameynaynaa isla page-kaan isticmaaleyno. ugu horreyn waxaan sameynaynaa listiyo. listiyada markaan sameyno kadib waxaan u dhiibeynaa linkiyo kuwaasoo inooga soo muuqan doono qaybta qoraalka. copy aan dhahno kadib aan baaste gareyno. waxaana ka bedeleynaa magaca. linkiyada markaan sameyno haatan waxaan sameynaynaa line break oo inaga saacidi doonto inaan sameyno qayb kaloo paragraph ah. copy ka bixi kadib aan badino. haddana waxaan abuureynaa qaybta paragraph-ka. paragraph markaad tiraahdo kadib waxaad leedahay isla paragraph-ka ayaan waxaa u dhiibeynaa linkiyadii aan hore usoo sameynay. kadib waxaan leedahay open bracket. linkii markaan furno ayaan leenahay name la mid noqdo home. kadib ayaan waxaan ku qoraynaa article-kan rabno. tusaale kale waxaan soo qoraynaa this is home section. mar labaad waxaan sameynaynaa line break. waxaan abuureynaa paragraph-ka labaad. haatanna aan tijaabino save dheh kadib waxaad imaataa browserka
refresh dheh. saa arkaysaan waxaa noo samaysan laba listi. labadan listi inoo samaysan waa laba linki oo kala duwan. hadda home markaan ku dhufto linkiga ii soo baxayo waa this is home section. markaan about ku dhuftana wuxuu i geenayaa this is about section. waan filayaa inaad ka hesheen. intaan ku kulmi doona muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa in nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi